AVS Media Demo. halkan waa shabakada Raas Caseer Media oo barnaamij aan ugu magac darnay Raas Caseer iyo hal sano kadib ku dhawaaqisteedii oo ku aadan xalay bishii 17 bishii Abriil 2012 maamulkaas ayaa hore waxa AVS Media Demo Sargaal iyo Caluula oo horey uga tirsanaan jiray maamul goboleedka Puntland. barnaamijkan ayaan rabnaa caawa inaanu ku wareysano oo ay marti noogu sheegeen oo ay naga aqoonayeen ka qayb qaataan qaybta Raas Caseer iyo hal sano kadib AVS Media Demo caawa halkan fadhida Cabdi Sacuud Guul oo ku dhaqan wadanka Sweden, Engineer Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Cali oo jooga wadanka Sweden, Caaqil Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo jooga wadanka Sweden, Kabtan Mahdi Maxamed Ismaaciil oo jooga wadanka AVS Media Demo Engineer Xasan Axmed Neegaro oo ku dhaqan wadanka Canada. ku soo dhawaada dhamaantiin barnaamijkan waad mahadsantihiin barnaamijka waxaan rabaa inaan su'aalaha AVS Media Demo iyo waxyaabihii kalifay inay Raas Caseer timaado deegaanadaas horey waxay uga mid ahaayeen maamul goboleedka Puntland muddo 13 sano ah markii ay meesha ka baxday dawladii dhexe ee Soomaaliya oo dalka Soomaaliya burburay. haddii aan ku horeeyo su'aalaha AVS Media Demo kula tahay sababta kaliftay in deegaanadaas ay ka baxaan maamulka Puntland. Engineer ku soo dhawaadid ku dhawahay waxaan maleeyahay marka hore intii barnaamijka soo qaadasay iyo intii ka soo qaybgashay AVS Media Demo waxaan halkan salaan ugu dirayaa ardayda kale madaxweynaha maamul goboleedka Raas Caseer wasiiradiisa dhammaan taliyaashiisa qaybaha nabadgelyada dhammaan bulshooyinka ku abtirsan maamulka AVS Media Demo waxaan leeyahay waa salaamantiin salaanta ka bacdi maamulkan Raas Caseer state waxaan maleynayaa inay dadku baahi weyn ay u qabeen oo in badan soo guuxaysay waxyaabihii kalifay inuu ka hoos baxo AVS Media Demo sabab oo ah isagoo in badan oo maamulkaasi loogu tegay cabasho badan oo kasoo jeeda deegaankaas oo wax ka qaban waayo cabashadaas ay kamid ahayd dhinaca waxbarashada caafimaadka biyaha AVS Media Demo arrimaha bulshada waxyaabo xuseeya oo aad dadkaasi ugu baxnaayeen taasaana keentay in badan markii loogu tegay in lagala hadlo inuu wax ka qabto oona uu ka qaban waayay inay iyagu iskoo AVS Media Demo gaarka ah ama tanguud ay gastaan inay wax ku qabsadaan waan gartay ditore haddii aan kaa dhex galo waynu qaybinaynaa su'aalaha waxaan rabaa inaan markana aan u weeciyo dhankaas iyo Canada. Engineer Xasan Axmed sida warka AVS Media Demo Raas Caseer ay timaado oo ay ka baxaan maamulkii ay hore uga tirsanayeen deegaanadaas ku soo dhawow AVS Media Demo horeyna waxaa ugu dhigsanan Puntland qabaha Puntland loo dhisay iyo waxyaabihii loo dhisay waxyaabaha lagu heshiiyey kama soo bixin wixii dhan waxay ku ekaadeen 3 magaalo qof kastana waa garan karaa AVS Media Demo dhaqaalaha Puntland ay ka qaataan waxay ka qaataan deegaanada Raas Caseer dhaqaalaha ka soo gala xataa laguma celiyo wax kamid ah 1% maban marka sababahaas keenay inay u tustaan ayahooda iyo AVS Media Demo ay isku tustaan ay dhulkooda istaan ay deegaanadooda ka warhayaan oona u suusadaan wax la peaceful waan gartaa maamul dadka deegaanada Raas Caseer waxgaradkoodu maamulka Puntland inay u tagaan soo ma ahayn oo dhahaan waxaan u baahanahay baahidayada in wax AVS Media Demo والله أنا horta qof kasto waayo meeshii maadaama ay ka ahayeen madax maamulada sare ay u badan yihiin waxay ahaayeen inay ayaga dadka u yimaadaan ay weydiiyaan maadaama horta wax la government AVS Media Demo in deegaanada oo dhan laga warhayo arrimaha bulshada waxbarashada xagga oo standard of life-ka waxaas oo dhan waxaas waa mas'uul ka noqon karo wax dowladda ah dowladda haddii adiga mas'uul ka ahayn ma aha in adiga u tagtid AVS Media Demo su'aaluhu way badan yihiin muxuu Engineer Xasan markana waxaan siinayaa Yuusuf Maxamuud Yuusuf ku soo dhawow Yuusuf
maxay kula tahay aragtidaada sababta raasi casayr ay uga baxday deegaanada puntland oo maamulka puntland oo ay hore uga tirsanaan jirtay oo muddo AVS 13 Media sano ay Demo. kamid ahayd maxaa kalifay ayaa la oran karaa yuusuf adigoo aragtidaada ka dhiibanaya بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا نورنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم AVS Media Demo. إذا إسكاله marka xigana waxaan salaamayaa marna aan bogaadinayaa warbaahinta raasi casayr media oo runtii isku hawshay inay barnaamijkan ay qabato AVS Media Demo. marka xigana waxaan salaamayaa asxaabta saaxiibadaya oo khadka ku jira oo wadamo kala duwan jooga haddaan usoo noqdo su-aashaadii waxa weeye raasi casayr AVS Media Demo. raasi casayr dee maanta may dhalan raasi casayr waxaa la yidhaahdaa deegaankaa la yidhaahdaa deegaankanina intii dal jiray waa jiray dadka maantay isu taagay inay deegaanadaas wax u qabtaan AVS Media Demo. dad maantay dhashay maahan waa dad jiray intii dad jiray bay jireen iyaguna ha laakiin yuusuf deegaanadaas weyn marka- haddii aan kaa dhex galo maxay tahay sababta ay deegaanadaas puntland uga baxeen maadaama ay hore uga tirsanaan jireen oo maamulka gaar waa ah kuusoo ugu dhawaaqay AVS Media Demo. waa kuusoo wadaa muhiimaddu waxa weeye dadku waxbaa la isku qaldaa waxbaan la fahmin waxaan la fahmin puntland waxay tahay war horta qofbaa wuxuu ku dhahaya puntland way AVS Media Demo. baanu kamid ahayn oo dadkii shirkii qardho iyo kii garowe joogay baanu kamid ahayn oo sababtaas lagama bixi karo taasu macnaheedu u noqon mayso dab u noqon mayso ama cudurdaar u noqon mayso puntland baa wax ka dhisay AVS Media Demo. uma baahna waxa dalalka kaleeto iyo deegaanada kaleeto ay u baahan yihiin cudurdaar u noqon mayso haddaad xaqiiqada dhabtaa a fiiriso waxaa la yidhaahda puntland magacu meeshuu ka yimid cid walbiba way garanaysaa wuxuu ka yimid AVS Media Demo. ka hadlayno caaway buu ka yimid laakiin haddiiba laga tago magacu meeshuu ka yimid anigu aragtidayda puntland waxaan u arkaa inay tahay jamhaddii SSB oo magaca bedelatay okay yuusuf dhegaystay waa ku macnaynaya AVS Media Demo. soo noqonaya waxaan rabaa inaan siiyo kabtan mahdi oo adiga aragtidaada maxay kula tahay maxaa sababay inay deegaanadaasu ka baxaan saaxiibadaada kaa horreeyay dhammaantood waxay dhaheen deegaanadaasu waxaa ku yimid dib u dhac aada u baahsan maamulka puntland ay hore uga tirsanaan jireenna wuxuu noqday mid ka gaabiyey inuu wax ka qabto adeegyada AVS Media Maxay kula Demo. tahay adiga aragtidaada mahdiyow بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan salaamayaa dhammaan shabakada raasi casayr iyo AVS Media Demo. sidoo kale Wadan. su-aasha haddaan usoo noqdo horta puntland waxaa sameeyey heshiis ay galeen ahayd bilowgeedii hore AVS Media Demo. heshiisay raasi casayrna waxay ahayd dadkii ugu horreeyey aasaasay puntland waan gartay markii la asaasayay 13 sano ka hor heshiisyadii la galay ee lagu heshiiyey AVS Media Demo. ka baxeen waxaa isku xeendaab samaystay in yaro is-xigta waxaa la ilaaway goboladii bari waxaa la ilaaway dadkii asaaska u ahaa puntland muddo ayay waxay raasi casayr raadinaysaa AVS Media Demo. dulqaad ay kusoo gaadhay waxaa caddaatay oo banaanaatay in lagu dhawaaqana xaq ay noqotay markii waxgaradku iyo aqoon-yahanadii reer casayr AVS Media Demo. ku qabsadeen shirweyne ayna go-aan ku gaareen waan gartay mahdi dabcan saaxiibadaada horeeto ayaad adiguna la fikir tahay oo waxaad leedahay puntland ay ka gaabisa deegaanadaas inay wax ka qabato cabdiraxmaan inagoo gudagelayna su-aale badan oo ku AVS Media Demo. sidii raasi casayr ayaan rabaa adigana inaad ku weydiiyo su-aasha ah maxaa sababay puntland inay ka baxaan deegaanada raasi casayr oo ay samaystaan maamul goboleed gaar ah oo u madax banaan maxay kula tahay kusoo dhawow cabdiraxmaan sheekh maxamed cali
السلام عليكم. AVS Media Demo. marka sharafta ay dhegeysanaysa oo qadka igula jirta hadda iyo inta ay dhegeysanayso Soomaali weyn gaar ahaan dhalinta iyo ummadda ka soo jeeda Raascaseer State. السلام عليكم. AVS Media Demo. waan leeyahay haddaan dib ugu noqdo su-aashaad i warsatay aniga saaxiibaday fikirkay qabaan mid ka duwan baan qabaa oo ah haddii aan ka hadalno maamulka Puntland waa la ogyahay AVS Media Demo. sababta loo aasaasay waxay ahayd markii burburkii 91 uu ka dhacay Soomaaliya maadaama ay dadkii oo walaalaha oo dhinaca kan ku abtirsan jiray deegaanada ay dib ugu soo noqdeen ee dhinacaas iyo koonfurka AVS Media Demo. intii dowlad federaal ama centraal ah laga helayo oo quwad leh dowlad dhexe ah in la isku yimaado oo lagu sugo dowlad ka dhalata Soomaaliya oo idil AVS Media Demo. gaar ah ayaa si qalad intay u fahmeen ujeedadii taas ahayd ku takrifalay marka muhiimadda Raascaseer loo dhisayna waxyaalaha ugu weyn waxaa deegaanadaas maadaama ay ahayn deegaano taariikhda dib AVS Media Demo. deegaanadii haddii aad fiiriso waqtiyada hore ganacsiga ka socon jiray ahayd oo eraboradeeda iyo waxaa shaqayn jiray dekadiga ay lahaayeen marka dib u dhac weyn baa ku yimid laga soo bilowbo dowladihii siyaad bari AVS Media Demo. marka kaadi su-aalo way badan yihiin waan kugu soo noqonayaa khadka ku jir waxaan markan weydiinayaa rabaa inaan su-aal weydiiyo ninka la yidhaahdo muxuu ahaa engineer xasan axmed waxaa tiri cid gaar ah ayaa AVS Media Demo. gobollo gaar ah ayay u danaynaysay maxaa macnaha ku qeexaysa inay gobollo gaar u danaynaysay Puntland oo dadkii wada samaystay dhammaantood kama sinnayn maxaad ku cadaynaysaa adigu arrinta noocaasa oo tusaalayaal u haysaa wallahi horta qofka bini'aadanka ilay AVS Media Demo. aqligaaga waxaa ku garan weysay qof kale inaad weydiisid ma fiicno waxaa caddaynayso horumarka laga gaaray qardho garowe gaalkacyo oo ah jiraahadihii kamid ahaa SSDF AVS Media Demo. nahay dad ehela walaala ah markaa ku darsamay asaaska Puntland si ay u dhaqmeen waa wax aad iyo aad looga naco su-aasheeda koowaad waa taas tan labaad waxa weeye horta adduunyada ujeedid waxa la never AVS Media Demo. mobile wixii dhacay waa dhacay marka waa inuu hadda ka tashanaa aayaheena dadka iyo ka qaybgalayaasha oo badan waan kugu soo noqonayaa su-aalo way badan yihiin haddaan siiyo Yuusuf Maxamed Yuusuf maxaad adigu u leedahay waa AVS Media Demo. ognahay in Puntland ay ka tirsanaayeen inkastoo hadda ay timi kala qoqobnaansho ama deegaana badan oo ka baxa oo maamulo goboleedo gaar laga sameeyo sida Raascaseer oo kaleeto Khaatumo maxay tahay adigu waxaad ku cadaynayso waxaynu ognahay in Garowe la isugu yimi dhammaan dadkii wada dhistay isimadoodu oo AVS Media Demo. SSDF waxay ahayd waxay dadkaas wada samaysteen maxaad ku cadaynaysaa adigu in SSDF ahayd waa su-aal fiican weliba hal baan kuu sheegay horta si aan u ogaano biyadhaca hadalku meeshu AVS Media Demo. in mataqaanaa minidiyadu ay kooban yihiin marka horta minidiyada noo fasax inaanu mataqaanaa warka biyadhaciisa aanu gaaro taas waa iga mid oo qof walbiiba macnaha hadalka ujeedada AVS Media Demo. anigu waxaan ku idhi Puntland haddii laga tago magacaan la sameeyey laakiin asal ahaan loo fiirsho deegaanadan waxaa ka jiray AVS Media Demo. 78 dad ka soo jeeda deegaanadan baa waxay ku dhawaaqeen jid had la yidhaahdo SSDF waxay la diriri jirtay dowladdii kacaanka ahayd oo uu madaxweynaha ka ahaa allah u naxariistay maxamed siyaad barre AVS Media Demo. maamulaayana waxaa kamid ahaa madaxweynihii dhintay bishii hore dhintay allah u naxariistay cabdullaahi yuusuf ujeedooyinka iyo himilada ay SSDF xambaarsanayd waxay ahayd ujeedooyin beeleed bay ahayd ujeedooyin AVS Media Demo. kaba ku dhufto waxay ahayd wax la yiraahdo majeerteen
iyagoo markaa ka duulaya baahiyo jira iyo dhibaatooyin jira iyo duruufo jira ka duulaya adigu waa taariikh dheer oo taariikhda HDF iyo AVS Media Demo. dadkuna way ogyihiin inaguna wayna ognahay haddaan se kusoo dhawaado meeshaan iskaga xiraayo magaca kan Puntland oo lagu qariyay wixii la oranayo HDF la oranayo lagu qariyay waxa weeye waxa la yiraahdo AVS Media Demo. SSDF dadka degaan goboladii la oranayay North Eastern la oranayay ama waqooyi bari la oranayay kulay wada jirin oo jabhadii SSDF kamay muulan mid ahayn AVS Media Demo. iyo sagaashadeeyadii wixii loo gaaray oo dagaalka qabaligayo uu dhacay oo laisku soo duulay oo la kala qaxay oo Soomaaliya ay kala hidheysay oo golo walbiba meeshay deganayd ama ay kasoo jeeday ay u guurtay waxaa dhacay meesha AVS Media Demo. waa magaalo qaybsan waa magaalo la wada dego waa magaalo beelo badan ay wada degaan magaaladaas waxaa ka dhacay dagaalo badan baa ka dhacay hujuumiye badan baa ka dhacay hujuumiyadii badnaa oo ka dhacay waxaa lagu wajihi jiray magaca la yidhaahdo SSDF AVS Media Demo. bacdama magaaladaas SSDF lagu difaaci jiray difaacina uu soo koobmay oo uu noqday wixii SSDF la oran jiray baa la fakeray oo rag maskax badan ay fakereen oo waxay u fakereen in magaca la bedelo si difaac u weynaado oo magaalada AVS Media Demo. waxaa loo fakeray maadaama magaca SSDF uu yahay magac beeleed oo weliba haddii beesha majeerteen la yidhaahdo hoos uga tiigadayo beel kamida beelaha majeerteen kamida noqonaya waxaa la fakeray in la ballaariyo okay Yusuf su'aalaha AVS Media Demo. waxaa la isugu yimid qardaan la isugu yimid garowana waa la isugu yimid garowa meeshii ugu dambeysay oo la isugu yimid waxaa la yidhi waxaynu qaadanaynaa nidaam la yidhaahdo Puntland waxaa lagu soo diray wasangeli baa lagu soo diray waxaa lagu soo diray dhulbahanta waxaa lagu soo diray leyrkas waxaa lagu soo diray AVS Media Demo. dadkaasoo dhan may ahayn SSDF laakiin nasiib darradu waxay dhacday dadku markay garan waayeen ujeedadu waxay ahayd 13 sano kadib 13 sano kadib ay Puntland jirtaa 13 sano kadib baa waxaa la ogaaday AVS Media Demo. oranayay oo 98 la dhisay inay ahayd SSDF oo magacii laga bedelay waa sababta maanta keenaysa in ay dhulbahanta ka baxaan waa sababta maanta keenaysa inuu wasangeli ka baxo waa sababta maanta keenaysa in mataqaanaa leelkas ay ka baxaan AVS Media Demo. awtabla ay ka baxaan waayo dadku waxay fahmeen khaladkii iyo musteegii ay galeen 13 sano ka hor ay galeen oo ahayd in SSDF oo magacii laga bedelay oo Puntland loo bixiyay inay ku waa khaldeen kugu soo noqonaya AVS Media Demo. mar idage ikadi qofku wuxuu yiraahdaa mar idage Allah hado mar labaad idagase anaaba doqon ma Allah aniga hayso waan kugu soo noqonaya dabcan waan kugu soo noqonaya waxaynu guda gelaynaa marka AVS Media Demo. iyo sida aad idinku aragtaan inay tahay inta badan dadka reer Puntland waxay aaminsan yihiin inay tahay nidaam la wada dhistay balse waxaynu u gudbaynaa mawduuceena kan oo ah caaway dhalashadii raasi casayr oo laga joogo 1 sano haddii aan ku bilaabo Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Cali AVS Media Demo. dhacay deegaanadaas haddii ay dadkoodu ku dhawaaqdeen maamul ka gaar ah Puntland oo ay la baxeen raasi casayr state of Somalia maxaa isbedel oo ka yimid deegaanadaas Cabdiraxmaan ku soo dhaw wallahi haddii aan AVS Media Demo. ka yimid alxamdulillah isbedel aad iyo aad u wanaagsan ayaa ka yimid isbedelkaasoo ah lambar fiiriso waxaa kamid ah maadaama deegaanadaas inta degmo uu ka kooban yahay aysan hore loo aqoon AVS Media Demo. deegaankii oo hadda si fiican ummadda ay gadaal u fiirisay inkastoo uusan bararka u baahnayn raas casayr weligeed ay jiri jirtay laakiin hadda waxaa khayraadka ku jiro ayay ummadda fahmeen oo la wada tusay oo loo iftiimiyey AVS Media Demo. oo kale oo kamid ah in 13 sano ee Puntland jirtay inaan iskoolaadka uusan shaqayn jirin wax iskool ah oo deegaanadaas ku yaal iskooladii dib loo furay biyihii waa isku taxallujiyey AVS Media Demo. وهذا قبل كل أفر في نامي وكذا تاريخ الأول كلا جلاي إن عام لأنك اللور يجي
marka dhibaatooyin badan baa haystay dhibaatooyinkii ayay ka tillaabsatay AVS Media Demo. annaga saan u aragno waa Marka waa ka- kugu soo noqonayaa isla su-aashaas waxaan siinayaa mahdi sidee u aragtaa adigu inay deegaanadaas isbedel ka dhacay isbedelkasi maxaa la oran karaa oo la taaban karaa muddo hal sano ah kadib maxaa u qabsoomay maamulkan raasi casayr ee laga AVS Media Demo. kusoo dhawow mahdi wallahi waxaa la oran karaa waxyaabaha ugu horeeya iyadoon meel kaleetaba laga eegin waxa ugu horeeya qof ashiga ummaddu ay tashatay inay xoogeeda ku caanomaasho ay isku tashato dugsiga samaystay AVS Media Demo. canshuurta ugu badan ee gasha puntland waxa laysku oran jiray markoodii hore inay ka bixi jirta raas casiir waxay ogaatay khayraadka ugu badan inay iyada leedahay waxay ogaatay canshuurta bixi jirta ugu weyneed inay iyada leedahay horumarka laga gaaro dugsiyada AVS Media Demo. caafimaadka horumaray dhaqaalaha dadku sida u wada shaqaysanayaan waxa yani doonyaha waxa isdhaafayo ummaddu waxay halkaasana ku garatay waa waxaysan ku garan 13 sano ay AVS Media Demo. waxaad leedahay waxbaa la qabtay oo isbedel baa dhacay haddii aan u gudbo Aad ama iyo aad isbedel aad u aynu weyn. isweydiino aan su-aashaas aan rabo inaan weydiiyo xasan axmed xasan oo waxaa jira dad kasoo jeeda deegaanada raasi casayr oo iyagu dhaliilsan nidaamkan raasi casayr AVS Media Demo. leeyahay ama siyaasiyiinta ku dhawaaqday ay iyagu dana gaara ka wataan adigu maxaad leedahay soo aragtaa arrintaasu ma jiri kartaa ma dhici kartaa inay arrintaasu jirto oo madaxda raasi casayr ay iyagu dana gaara ka wataan ama ay leeyihiin in ay ku meel marsadaan siyaasadahooda shaksiyeysan AVS Media Demo. kusoo dhawow xasan hallo waxaan u malaynayaa xasan wuu ka baxay haddaan u yeero may maqlaysaa halo ha AVS Media Demo. maqlaya xasan soo aragtaa soo ima maqlin macnaha hadalkayga waan ku maqlay si fiican horta waxaa fiican sheyga runteed laga hadlo siyaasiyiinta u dhashay deegaanka raas caseer waxay sugiyeen iyo waxay ka qabteen AVS Media Demo. aqli laa garan karo waa waxay ka qabteen waa wax la sheegi kara maaha waa wax aad u fiican waxay qabteen jid bay suugiyeen laacalula gargar isku xiro waxay fureen iskoolaad waxay isbitaalada hadda furooyaan oo qaarna waa furan yahay AVS Media Demo. bilaabeen waxay suugiyeen ciidan security nabadda sugo oo ku dadaalayo aayahooda iyo mustaqbalkooda iyo deegaanadooda inay dhistaan qof kastoo bini-aadamna xaq wuxuu leeyahay wixii deegaankiisa ah inuu suubsado uu dhisto AVS Media Demo. oo u suubiyo dadku kasoo jeedo ha laakiin xasan siyaasiyiintaas su-aasha waxay waxay inay lagaan xasan aan kaa dhex galo waxaa jira ganacsato ama qaybo kamid ah bulshada inkastoo aysan badnayn oo iyagu dhaliilsan nidaamkan lehna deegaanadaasu kama bixi karaan maamulka AVS Media Demo. qaladaad ah ama wixii tabasho oo jirtana in maamulka lagala hadlo ayaa haboon arrintanuna waa arrin khaldan maxay iyagu macnaha gansanayaan ama ay isleeyihiin waa ku khaldan tahay raasi casayr soo aragtaa adu arrinta noocaasa inay u fakeraan iyagu dadka kasoo jeeda raasi casayr AVS Media Demo. su-aasha weydiisay waa su-aal aada u fiican horta waxaa muhiim ah in la isweydiiyo ninka ganacsataya ah ama ninka businessmanka ah muxuu interestkiisa uu yahay inuu fiirsado his own interest oo dadka inuu wax u fiiriyo waa in isweydiiyaa AVS Media Demo. nimanka oo ganacsatada businessmanka oo kasoo jeeda deegaanka raas caseer inay khaldan yihiin waxaana fiican ilahay inuu soo hanuuniyo oo jidka saxaa tusado mafahant waxaana aada iyo aad u balinayaa ninkii sheegtay wasiirka puntland oo maxamuud saalax AVS Media Demo. oo kamida waxyaabo badan oo aniga wax kamid ah member of the community activity from Etobicoke in Etobicoke Association in Toronto waana isla soo shaqeynay mafahanti waxyaabaha uu u qabanay iyo siduu isdigay uu ka doortay dadkiisa iyo AVS Media Demo. qofka interestkiisa uu raaci karaa wax weyn maaha mana ku balgaranayo muxuu raacay oo muxuu u sugayay laakiin waxaa jirta wax laa waa in la isweydiiya waa la common groundka la isweydiina waxa waaye maxaa interestkayga AVS Media Demo. iyo deegaanadeena wax u qabto sida magaca ugu yeesho waan kusoo noqonayaa xasan waktiga oo ina ku yar haddii aan u gudbo cabdi saciid gul maxay kula tahay adiga aragtidaada maxaa u qabsoomay raasi casayr maxayse uga soo horjeedaan dadka kasoo horjeeda ee dhaliilsan nidaamkan raasi casayr AVS Media Demo. kusoo dhawow
والله runtii raacsan wax badan oo hadda aan halkan kusoo koobi karo ma soo soomi ka mid yihiin waxbarashada weyn amnigu AVS Media Demo. يعني ما أعرف أحيي كذا معناها إيش ما كده صار مع يعني هذا حاجة إن كل AVS Media Demo. هذا ما أعرف أكيد لا يحصل ناس كلها ما وش مطلوب طبعا يعني ما نسي AVS Media Demo. waan gartay waan kugu soo noqonayaa cabdi saciid gul sidaa khadka ugu jir haddii aan weydiiyo su-aalkan ka duwan oo ah maxaa u qabsoomay raas casiir yuusuf maxamuud yuusuf oo aan su-aashaas in wada dhex dhigi doono sidee bay raasi casiir uga mid noqon kartaa dowladda AVS Media way u Demo. buuxinaysaa shuruudaha dastuurka kumeel gaarka ah ee Soomaaliya ee haddana la rabo midkan cusub ee qabiyo qoraalka in la astixiyo ee ay ku qeexan yihiin in laba gobol iyo wixii ka badan ay noqon karaan maamul goboleed Yusuf soo aragta adigu arrintaas raasi casiir AVS Media Demo. ka inay noqoto maamul goboleed inagoo og in deegaanadaas horay aysan u ahayn gobollo ama ay degmooyin yihiin marka laga reebo maamulka raasi casiir oo ku dhawaaqay laba gobol oo cusub inay yihiin deegaanadaas oo iyagu sameeyeen kusoo dhawow AVS Media Demo. deegaanada iyo dastuurka ay Soomaaliya qoratay ee sheegaya laba gobol iyo wixii ka badan baa state noqon kara maanta markaad fiiriso Soomaaliya AVS Media Demo. marayaan adigu haddii intii aan maqlay aan sheego ilaa iyo dhowr iyo soddon bay marayaan dhowr iyo soddonkaas mid gobol iyo wax u dhow haystaa ma jiro haddaad aragto qaybtood waxa hal magaalo AVS Media Demo. waxa lagaga dhawaaqay 3 gobol haddaad fiiriso baaxadda dhulka deegaanadan raasi casiir la yiraahdo uu ku fadhiyo dowladii maxamed siyaad barre berigay gobolada bixinaysay ama gobolada ay ku magacaabaysay waxay ahayd warqad qalin AVS Media Demo. si gobol lagu magacaabo ama si gobol lagu bixiyo fiirisay ama eegtay ama mataqaanaa usoo nagaamisay may jirin dadkan cid tirisay may jirin baaxadiisa cid eegtay may jirin dhulku inuu isbixin karo cid eegtay may jirin laakiin waxay ahaayeen wax AVS Media Demo. ku dhajiyada taasu marka Soomaalidu ay fiirinayso tabashada raasi casiir wey seebay ula jaan qaadaysaa raasi casiir dowladda federaalka way u noqonaysaa federaal waxay ula jaan qaadaysaa AVS Media Demo. waad aragtaan gobolada haddii la fiiriyo ku xeeran Soomaaliya ku xeeran mid aad oran karto shuruudaha labada gobol iyo wixii ka badan buu buuxiyey mid aad oran karaysaa AVS Media Demo. marka waxaa jiraya system iyo mataqaanaa axdiga waxa kan lagu qoray oo labada gobol ah waxaa jiraya nidaam qeexaya jiraya oo sida loo macnaynayo bay ku xiran tahay oo labada gobol dadkan hal AVS Media Demo. wada degtaay ma jirto waa in ummadda deegaanada Soomaaliya noocay doonaanba ha ahaadeen gobolada iyo degmooyinka iyo tuulooyinku say doonaanba ha u kala dhignaadeen dadkan ilaahiyay ku beeray ee kala degan waa siday isu waafaqaan oo iyagu isu qaataan raasi casiirna taasay ka mid tahay AVS Media Demo. baa jira deegaano ay mataqaanaa isku dhow yihiin baa jira deegaano dadkooda ay xiriir leeyihiin siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid ganacsi iyo mid isdhexmar baa jira marka nidaam waxaa jira la isu fiirinayo hadda maanta fiiriso gaalkacyo oo kaleeto waa AVS Media Demo. waa laba xaafadna galmudug baa ka talisa xaafadna puntland baa ka talisa waxaan oranayaa cadaysay qaabka ay macnaha ama waa ka jawaabtay su-aashii aan ku weydiiyey waxaan markana u jeensanayaa AVS Media Demo. xasan axmed sidee kula tahay adiga raasi casiir way uga mid noqon kartaa dowladda federaalka ah walaabta dowladda federaalka ah waxa weeye marka la yiraahdo federal institute AVS Media Demo. ah noqotaa dowlad Soomaali dacad ah waxa weeye deegaanadan raasi casiir waa deegaano fog balaar ah oo dad tiro badan degan
oo ilaahay khayraad siiyey dowladda federaalka ah AVS Media Demo. طبعا deegaanada waxa haysano ilaahay wax hodankoona siiyey waxaasoo dhan haddii ayagana soo jiidan ma aha in anaga u tagno dhaanaa aabarino ama hadda for example shaki garow ka dhacay looma dhamo waxaa ku shiray laba beelo AVS Media Demo. ku shiray garow 1 garow 2 waxaa ku shiray beesha maxamuud salaaban iyo beesha mudulub oo ku suubsanayo danahooda sida kursiga ku xishin lahayd marka kursiga soomaalida haddii AVS Media Demo. haddii la helo waxa weeye waxaa soconaya dagaalada waxaa soconaya failanka sidee looga gudbaa kala guurka hadda socdo waxaa looga gudbi karaa qof kasta oo soomaali ah adkiisa waa in la siiyaa oo si daacada wax loo qaybsadaa oo AVS Media Demo. institute la raacaa waxaasoo dhan ayaa looga gudbi karaa marka raas caseer waa maamul goboleed oo buuxiyey shiradaha soomaalida arrin kale ku diraya erikaada waxaana muhiim ah AVS Media Demo. puntland raas caseer in la isku xadgudbo maaha waxaa aragnay in dagaalo lagu soo qaaday raas caseer oo kusoo qaaday wasiirka amniga iyo faroole ee ciidamo usoo direen oo meeshaas dagaalo ka dhacay iska caabiyey ay kasoo laabteen anagana maanta wax kasta waa u diyaar garoow AVS Media Demo. haddii fadhi rabaan wanaag rabaan inta diyaar baa unahay laakiin dhulkan waxaa naga soo go-an inuu noqdo state oo maamulo oo danahooda iyo constitutionkooda iyo sharcigooda ayaga AVS Media Demo. ka baxo hadalka waxaana aad iyo aad u mahadle madaxweynaha faarax duxujoog oo wadankaas oo dowlad ku dhisay uu qabtay wax la sheegi kara ma aha waan u mahad celinayaa arrinteedana saasa ugu baxay waad mahadsan tahay su-aaluhu dabcan waa AVS Media Demo. gabagabeyna waxaynu isweydiinaynaa in dareen inta badan ay qabaan bulshada qaybo ka mid ah oo ah maamulkan raasi casayr waa afkaar ka yimi qurba joogta oo marka la eego shirar lagu qabtay dhul kala duwan oo banaanka ah sida Sweden Ingiriiska AVS Media Demo. kabacdina dalkii la tagay soo aragtaan idinkoo dabcan idinkuna ah qurba joogtii deegaanadaas u dhalatay kana mid ahaa dabcan raggii asaaskeeda loo aaneynayo ama afkaarta wax ku lahaa in ay raasi casayr ku timi soo aragtaa AVS Media Demo. oo ah wax qurba joogta kaliya ay wadato ee aan loo dhamayn kusoo dhawow cabdiraxmaan waan ku dhowahay haddii aad ani su-aashaas i warsato waxa weeye qurba joogta waa dad deegaanka u dhashay AVS Media Demo. deegaankana xaq bay u leeyihiin inay ka hadlaan xil weyn ayaana ka saaran tan kale oo ah oo su-aalihii aada warsanaysay xasan iyo ku dheehna ama aada warsatay xasan iyo AVS Media Demo. oo ahayd sidee macnaha federaalka uga mid noqon kartaa sidee federaalka uga mid noqon kartaa raas casayr sida xasan iyaba kuu sheegeen raas casayr waa jasiirad AVS Media Demo. la gaari waa haddii aad fiiriso inta degmo iyo inta tuulo ay ka kooban tahay waa dhul biyeed ama xeebeed oo kooban waa AVS Media Demo. maamul goboleed shuruudihii buuxiyey sababta in walba meel lasoo gaari jiray ma aha marka go-aankaas dadka deegaanka ayaa qaatay wax banaan uga yimid ma aha haddii banaanka loo aaneynayna dadka AVS Media Demo. kamida qurba joogta marka deegaankana u dhalanay oo waa ka geysan kartaa waa ka geysan karnaa wax waa ka bixin karnaa waan gartay waa cad yahay warkaagu haddaan siiyo yusuf saaxiibka cabdiraxmaan waxa uu qirayaa ama cabdiraxmaan andhaho waxa uu yiri AVS Media Demo. u dhasheen ma la oran karaa marka in qurba joogta kaliya fikir ka yimi uu yahay raasi casayr soo aragta adigu arrintaas oo ay jiraan dad macnaha arrinta noocaas u dhiga markii ay ka sheekeynayaan raasi casayr oo dhaha waa wax ay ku riyoodeen qurba joogtu oo aan gudaha kasoo maaxan AVS Media Demo. halban waan soo dhaweynaya anigu fikirka cabdiraxmaan waan soo dhaweynaya fikirka engineer cabdiraxmaan waan soo dhaweynaya waana la qabaa runtii waayo ninka Canada jooga iyo Mareykanka iyo Australia iyo meeshuu doonada ha joogo AVS Media Demo.
ninka caluule iyo baargaal iyo waxa weeye xaabo iyo mataqaana taageer iyo moodiye jooga ma wuxuu oranayaa ninkaasu kama hadli karo miyuu oranaya waa maya waa waraan jirin weeye waxa weeye kan guda joogta iyo kan qurba joogta dalka waxa weeye mas-uuliyad AVS Media Demo mas-uuliyad siman baa ka saaran weliba ninka qurba joogta waxaa ka saaran mas-uuliyad ka badan kan guda joogta ah waayo wuxuu haystaa fursado badan oo uu dalka ku caawin karo hal baan ku darayaa arkaas dadkan AVS Media Demo ka hadla raas casiir ka hadla intooda badan waxay dhahaan maxay qabatay raas casiir anigu halka aad baan usoo dhaweynayaayo haddii maanta dadkaygu ay garteen inay isticmaalaan kelmadda ah maxaa naloo qabtay AVS Media Demo maxaa naloo qabtay haddii maanta dadkaygu ay garanayaan isticmaalkeeda ay garanayaan waxay isweydiin karaan 13 sano maxaa laydin qabtay inay sanad fiiriyaan sanad weliba sanadaa xasan iyo ragga aqoon-yahanada iyo kale AVS Media Demo barnaamijka ku jira ay fiican oo faahfaahsan oo qurux badan ay u cadeeyeen wixii raas casiir ay qabatay iyo wix meeshay kasoo balaabatay iyo meeshay maanta taagan tahay ay si qurux badan u cadeeyeen laakiin haddana kelmadda ah maxaa naloo qabtay AVS Media Demo sano waqti yar maaha waqti dhow maaha waa waqti aada u dheer 13 sano maxaad dhulka u jiiftay oo lagu qabtay marka aad baan usoo dhaweynaya haddii dadkaygu afkooda uu barto haddii maanta raas casiir ku yiraahdaanna waan ogahay inay AVS Media Demo waan gartay Yuusuf dabcan waxaynu maraynaa gabagabadii barnaamijka waxaynu ognahay xilligan madaxda raas casiir oo u horeeya madaxweynaha maamulkaas kaga dhawaaqay deegaanadaas waxa uu joogaa Nairobi dhawaanna waxaa la qabanayaa AVS Media Demo guud ahaan maxaad u gudbinaysaan bulshada reer raas casiir oo ka socda dhankiina oo ah tala ku darsasho xasan aan ku bilaabo barnaamijkeena waa gabagabo xasan maxaad u gudbinaysaa reer raas casiir iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ku dhageysanaysa AVS Media Demo ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan waxaa u gudbinayaa waxaa ku salaamayaa islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ummadda degan raas casiirne waxaa ku salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa muhiim ah AVS Media Demo ummadda raas casiir waxaan siinayaa advice oo ah qofka bini-aadanka hadduu naftiisa isaga wax u qabsan qof kale muu qabto mafahanti waxa weeye qofka tiisa wax u qabsado ayaa dad kale wax u qaban karo AVS Media Demo aad iyo aad ugu sheegayaa ummadda degan raas casiir inay danahooda iyo ay gartaan nimankaa hore ii weydiisay oo businessmanka ah ayagana inay soo laabtaan ee raacaan dadkooda ama danaha guud AVS Media Demo waxaa la yidhi meel buu ka dhashay meeshuu ka dhashay dalkii saxdu waa inuu ku raaca markuu saxsiyana waa inaad talada waa saxsan tahay saas baa ummadaas u sheegaya waad mahadsantahay injineer xasan mahdi haddii aan AVS Media Demo oo aad tala ah oo aad usoo jeedinaysaa reer raas casiir iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ay ku dhageysanaysa allo waxaan u malaynayaa mahdi wuu ka baxay khadka waan ku soo noqonaynaa AVS Media Demo maxamed cali haye gabagabadii barnaamijka ayaynu joognaa maxay tahay oraahdaada ku aadan ee aad usoo gudbinayso dadka Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer raas casiir dadka Soomaaliyeed waxaan usoo gudbinayaa ilaahay colaadaha inuu ka saaray abaaraha haysta AVS Media Demo gartaan tubta toosan ilaahay uu ku toosiyo ummadda reer casiir gaar ahaan waxaan usoo jeedinayaa xariirjiidka inay iska daayaan oo maamulkan uusan lahayn shaksi ay ku tilmaamaan shaksi mala maamulkan deegaanka AVS Media Demo mala dadka deegaanka oo dhan baa wada leh waa qof walba meeshuu kasoo gaaro waa in uu ka qaabtaa hawsha saaran injineer faarax dooxajeeg madaxweynaha raas casiir state howl fiican ayuu ka wadaa Kenya AVS Media Demo hay-adiga la shiray safaaradihii waa la shiray mar dhowna xafladii baa dhacaysa insha allah kadibna xamar baa isugu tegayaa marka qof walba uu ka maqnaa waa inuu xamar tagaa oo arrimihiisa iyo danihiisa iyo AVS Media Demo inuu goobjoog ka ahaadaa cid mas-uul ah ka ah ay jirto waan gartay iyo cid dowladeyn karta
waad ku mahadsan tahay waqtiga aad nasiisay ee aad nagala qayb qaadata barnaamijkan haddii aan siiyo markaana cabdi siciid guul doctor cabdi maxay tahay warahdaada ugu dambaysa AVS Media Demo ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan daafaha dunida ee ku dhagaysanaysa qof marka hore dadka raasacasir waxaan usoo jeedinayaa inay maamulka ay dhiseen ay gartaan inay garab galaan iyaga oo isku duwan oona ka kooban AVS Media Demo ganacsatada culimada diinka ururada haweenka iyo cuqaash intaba waxaan leeyahay sidii aada maamulkaasayto aada garab usii mahaydeen owaadhigiismagahadinadiistaagtaan teeda labaad maxamed faarax AVS Media Demo maanta aad joogtaa madaxweyne maamulkaas caseer wasiirihii la istaagi lahaa la garaaci lahaa ha ahaate beesha calam qaybahooda kala duwan ururada deeqaha AVS Media Demo loo istaagi lahaa amase lagala hadli lahaa maanta aad joogtaa teeda kalena waxaan ugu sii doorinayaa in uu shirka ka dhici doono xamar roadmapka macnaha lagu soo afjari doono iyo dastuurka macnaha federaalka ah kii AVS Media Demo federaalkiisa inuu ahaado mid u taagan oo iyada nafkeeda xamar xataa uu ahaato inuu maaragtay usii istaago teeda kale waxaan leeyahay waxaa ugu maqaala xafladda dhaaistiraada iyada nafkeeda waa soo dhaweyneynaa AVS Media Demo waa mahadsantahay gabagabadii ayaanu joognaa waxaan ila tahay mahdi khadka wuu ka baxay waanu eegeynaa hadduu kusoo noqdo intaanu ku jirno yuusuf maxamuud yuusuf orahdaada ugu dambaysa maxay noqonaysaa ee ku aadan aada usoo jeedinayso reer raas casayr iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed AVS Media Demo ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay soomaaliyeed maanta waad ujeedaan meesha xaal marayo wuxuu marayaa meel la yidhaahdo cidina uma maqna ceelna uma qodna in midnimada ummadda soomaaliyeed laga shaqeeyo in midnimada ummadda AVS Media Demo muqadis in wanaaga iyo waxwada qabsiga iyo xifdiga iyo xasilnimada iyo qurunka laga baxana waa waxa weeye aada iyo aad aan usoo dhaweynayno inay dadku caqliga uu shaqeeyo waxaan leeyahay AVS Media Demo salaadiintooda siyaasiyiintooda shacabkooda aqoon-yahanadooda hal kelmaan anigu odhanay halka kelmo anigu aan odhanayo waxa weeye maanta adeecadaha markaad furto AVS Media Demo ama daaha ummadda soomaaliyeed aad ka imanayo aada dhegeysato hal kelmadaa dhagahaaga kusoo dhacayo oo ah majeerteen kelmada la yidhaah war majeerteen in aan anagu dhibtiisa dhibka majeerteen AVS Media Demo la qabnaa dheeftiisana dad gaaraa qaata bal idinku kelmadaas ark waayo qof walkiiba maanta wuxuu kugu cilaadinayaa aydanaan isgaranayn waa dib iyo xumaan iyo xaq iyo AVS Media Demo fog oo uu geystay nin magacaa kula sheegta in marka dadkaas ay u istaagaan inay xumaanta dhacaysa iyo dhibaaliya ee naanaysaha loo bixinayo inay ka magac banaan yihiin inay u istaagaan isku duubnina ay AVS Media Demo isku duubni muujiya waxla wada qabsada ilaahayna haydin duulayaan waan gartay waa mahadsantihiin wuxuu ahaa barnaamijkan aan ugu magacdartay aan ka faa'iideysta hal waxaan ku daraa aan ka faa'iideysta sugal ka faa'iideysta arrintan aan ka faa'iideysta wariye AVS Media Demo maadaama uu hadda shir garow kusoo dhammaaday xubno ka tirsan oo qurbajoog meeshaan ka tegay iyo xubno gudaha joogaba ee wadanka ay joogaan oo isku dayaya inay carqaladeeyaan maamulka raascaseer AVS Media Demo waxaan ka waaninayaa in aysan kolxumadii geeridii naxdinta lahayd Yusuf ku timid ilaahay kuma keeno ummadda waana uga tacsiideynayna eedadiisii asagaba in aan carqalada noocaas oo kale meesha aysan ka dhicin AVS Media Demo meeshaas ilaahay ka qabto hadda shirka ka qayb gala garowe ayaa ku hamiyaya inay tagaan dhulka deegaanada qalalaasana ka sameeyaan waxaan loo qarinayaa wixii meeshaas ka yimaada ayagaa ka mas-uula wabillahi tawfiiq AVS Media Demo aan ugu magacdarnay raasi casayr iyo hal sano kadib ku dhawaaqisteedii oo lagaga dhawaaqay degmooyinka baargaal iyo calula ee dhaca bariga fog ee Soomaaliya maamulkan ayaa hadda wuxuu yahay mid sanad jirsaday waxa aanu ku wareysanaynay AVS Media Demo daafaha dunida
oo nagala qayb galay barnaamijkan waa mahadsantihiin dhammaantiin inta aan barnaamijkan mid lamida ku kulmayno waa aniga oo Yaasiin Axmed Maxamuud iyo bahdii Raasi Casayr Media oo